haddaba dowladda Singapore ayaa waxay gabi ahaanba eraboradoodii soo tubtay dad takhasus ku ah caafimaadka kuwaasoo kaa baari doona markaad eraboor kasoo degtid inay qandho ku hayso iyo in aad busbus qabto. sidaa la socotaan Singapore ilaa 10 qof ayaa waxa laga helay cudurka mpox-ka, laakiin mpox-ka asaad darajooyin kala leh, midka koowaad iyo midka labaad. ayaga kuwa dadka laga helo waa kii labaad, balse kan qatarta ah waa kan koowaad. haddaba wadamo ay kamid yihiin sida Singapore iyo Sweden iyo goobo kale oo caalamka kamid ayaa hadda waxay bilaabayaan in dadka kasoo dega goobtaasi eraboradooda ay baaritaan ku sameyn doonaan si ay u hubsadaan dadkaasi inay cudurkaasi mpox aysan qabin. haddaba taxadar insha Allah. adiguna haddaad u safrayso dalka Singapore waa inaad aadan waxaa lagaa baarayaa qandhada, 2 waxaa lagaa baarayaa busbus, 3 haddii aad labadaas qabinna gudaha ayaad u gelaysaa wadanka oo dalxiiskaagii ayaad maaragtay gudanaysaa. sidoo kale wadamada caalamka ayaa waxay ku fikirayaan ayagana inay sidoo kale ay raacaan wadada Singapore oo kale oo airportka markaad ka degayso lagaa baaro inaad qabto cudurka. wixii warar ah halkan kala soco. mpox-kana weli farakul ayuu ku hayaa wadamada Afrika siiba Congo iyo wadamada u dhow. haddii warar dheeraada ay soo kordhaan insha Allah halkan ayaad kala soconaysaa. gaarsiiya barnaamijka Soomaalidu.